waxaanan soo dhaweynayn in la yiraahdo magaalada madaxda dalka laguma shiri karo oo amni ma aha. ma garanayno cidda loogu danaynayo, laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo cid walba oo ay ka suurtoodo inay sidaas tiraahdo inay tahay astaanta qaranka, inay tahay magaalo dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan ay gacmahooda ku wada dhistaan, inay tahay magaalo aan qolo lahayn, ay tahay magaalo Soomaaliyeed, inay tahay magaalo madaxdii qarannimada ummadda Soomaaliyeed, inay tahay xaruntii dawladda dhexe iyo baarlamaanka. sidoo kale waxaanan soo dhaweynayn in la yiraahdo daraf saddexaad oo ajnabi ah hana soo dhex galo. daraf saddexaad waa dhaqankii aan soo baranay oo la dhihi jiray ajaaniibtu ha u kala garqaado madaxda Soomaaliyeed. kaasi waa la soo dhaafay. xaaladda dawladnimada ay ku sugan tahay maantay waxay maraysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan inay dareemayaan in sharaftoodii dawladnimada ay soo noqoto. sidaas daraaddeed waxaan leeyahay waa la soo dhaafay waqtigii shacabka Soomaaliyeed ay aqbali jireen in iyagoo u jeeda madaxdooda ajnabi ugu kala turjumo. waxaan leeyahay mana yeelayaan shacabka Soomaaliyeed, maadaama aanay shacabka Soomaaliyeed yeelayn, annaguna ma yeeli karno wax aanay shacabka Soomaaliyeed ogolayn, sababtoo ah inaan aqbalno rabitaanka shacabka Soomaaliyeed macnaheedu waxa ay tahay waa qayb ka mid ah isla xisaabtanka saldhigga u ah dawladnimada hadda noo dhisan. danaha Soomaaliyeed waxaa ka turjuma dad shacab iyo madax Soomaaliyeed. ma yeelayno inaan 20 sano ka badan dib u noqono. xaaladda dawladnimadeenu ay maanta ku sugan tahay haddii aan nahay Soomaali waxa ay tahay maantay in dawladda Soomaaliyeed iyadoo ay ka shaqayso inay u kala dab qaado dawladaha dariska si iyaga u heshiisiiso dhexdoodana uga dhaliso wanaag. annagoo marka ka shaqayn doona wax walba oo keeni kara inaan hore u dhigno qarannimada iyadoo looga shaqaynayo maskax iyo maal iyo muruq Soomaaliyeed. waxaan soo dhaweynaynaa cid walba oo doonaysa inay nagula wado gaarigaas madaxtinimadu dawladnimada Soomaaliyeed ay ku wadaan oo ah dariiqa saxda ah. waxaan soo dhaweyn lahaa ballanteenu waa inaan kulligeen Soomaalinimo dalkeenna u wada dhisannaa. waxaan leeyahay markaa diido dhaxal kuma lehid.